waxaan taaganahay madaxweyne farmaajo dhexaadinaya xasan sheekh iyo Saciidani shalay xasan sheekh wuxuu dhexaadinaya Dani iyo farmaajo marka siyaasadda ka shaqeynaa taas politics ka shaqeyn nina wuxuu ku leeyahay isku laabee waraa xarafkan maxaa ku qoran inta lambarka maxaa laga bedel maxaa la tiri this is not how politics works galmudug waa matalaya okay qarankii waa matalaya mas'aalaha siyaasiga waa matalaya annaga dhana 10 qofood isku jirtay dastuurkana marka wuxuu kala 10 qofood isku jirtay matala dastuurka marka anaga dastuurka halka ma dhigi karna marka fiir meel kasta waxaan ku soo qornay shariicada islaamka hal aayad oo quraan oo muhiim ah maanta rabaa inaan sheego nabi muuse markuu ilaahay aaday walaakiis haruun raaka u tagtay nin waxa soo baxay saamir liiraado dibiyo sameystay asaga la caabudo markuu soo noqday nabi muuse wuxuu ku xanaaqay saamiri wuxuu ku xanaaqay walaakiis haruun wuxuu ku yiri maxaa u ogolaatay inuu ninkan caabudo dadka inay caabudaan dibiga sanamka shayada quraanka ay yaqaana si fiican u yaqaana markaas wuxuu yiri marka garka iyo timaha ku dhigay hal mar wuxuu yiri yabna umma waliya markii las caadifada hooyada la sheegta la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si madaxan ha iga jiidin garkana ha iga dhufanin inni khashiitu an taqula farraqta bayna bani israa'iil waxaan ka cabsaday yiri in ay dhaxdo reer bani israa'iil kala dirtay marka midnimada reer bani israa'iil in ay igu timaado yaa iga muhiimsan oo dhahay dibiga caabudayaan dalkan wax kasta midnimadiisa ka muhiimsan dastuur aan bedelo ama yaana bedelin ama aan wax ka tirno ama yaana ka tirin wax kasta oo midnimada dalka u dhimaayo wax kasta ay ka muhiimsan yihiin saas daraadeed haddaan rabno inaan cadawga dibadda iska celino oo cadawga gudaha iska celino waa inaan waxaan ka shaqeynayna ay ka shaqeeyaan midnimada dalka iyo dadka conference maas kastana aan u sameeynaa midnimada dalka iyo dadka aan u sameeyno saas daraadeed waa inay u muuqataa baarlamaankan iyo dawladda iyo xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo shacabkeena gudaha iyo dibadda iyo midka geeska Afrika ku dhaqan oo Soomaali ah dad isku duuban iyo wixii isku duubila inaan ka shaqeyno annaga yeena eersanin dadka wax kala geynay yaanan laga shaqeynin siyaasadda isbedelaysa fiiri dastuurkeena wuxuu confused u yahay annaga waxaan nahay nation confused ah aniga Cabdiraxmaan Shukri la yiraahdaa qabiil maraa matala mar deegaana matala galmudug laga rabaa waxa la yiraahdaa hiiraan oo kii ka galmudug ah tahay okay no problem galmudug matalaya okay qarankii waa matalaya mas'aalaha siyaasiga waa matalaya annaga dhana 10 qofood isku jirtay dastuurkana marka wuxuu kala 10 qofood isku jirtay matala dastuurka marka anaga dastuurka halka ma dhigi karna marka sababtoo ah maanta waxaan taaganahay madaxweyne farmaajo dhexaadinaya xasan sheekh iyo Saciidani shalay xasan sheekh wuxuu dhexaadinaya Dani iyo farmaajo marka siyaasadda ka shaqeynaa taas politics ka shaqeyn nina wuxuu ku leeyahay isku laabee waraa xarafkan maxaa ku qoran inta lambarka maxaa laga bedel maxaa la tiri this is not how politics works siyaasadda ma shaqeyso inda aan kala furno realist aan noqono ragga xanaaqsan maanta shalay faraxsanaayeen madaxda dowlad goboleedana waxa dhahaya marka xildhibaanada soo xulaysiin ha soo xulinina ku idinka inii codeeyo kaliya ee ku aayatiinka dalka ka doodi kara maanta tabaysiisa uma baahida mid aayatiinka dadka ka doodi kara oo dalka masiirkiisa ka hadli kara soo xusha laakiin marka waxa la soo xulaysiin oo aragtiin hada anaga qof kasta waxa uu soo xulin oo codeeyo Soomaa inta badan raali hada haddii aad ku nooshahay magaalada Nairobi ma ogtahay shirkadda Faras Taxi inay macaamiisheeda siiso qiimo dhimis aad u ballaaran sidoo kale shirkadda Faras Taxi waxa ay ku soo celinaysaa 10% lacagtaada trip walba aad qaadato lacagtaasi oo ah Faras Miles waxa aad ka dhigan kartaa M-Pesa kaarka ku hadalka ama internet haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store